عن كيهين قبضنا لجورسدي اللي يرادو سيستر سارة وحي سو قرتي الحمد لله هدا أيانا سهلني معناها هدا واسجورسني أنا إيو أضيجيجا سداس درتي ذو حيلة الحمد لله إلينا أوكي قصة ما أهن قصة لياب له ما أهن لكن سومالي ده حقه ده مركل الله فيريو لياب يكون نقطة وحيلين قبلنا ديج ملاهم بصوبته أهنين كذا يناكل أجورني سافر وحلا ومدل قادن كرو سهل ما يلي كرو سومالي دي ديجا كاي الله 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 ديك سنة وحاسن كوجا سومالي صوبته بين مرنا ما يلي يعني أوكي أن وحي كسو قرتي yes we are married الحمد لله يسو قرتي ها وانس قرسني الحمد لله horta si guud marka loo fiiriyo Soomaalida iska dhibsata gaar ahaan gabdhaheena moogiye oo aan rabin in odaygooda la qaybsado oo aan rabin in dhaxalkaas la wadaago moogiye sideeda kale diinta islaamku ay ogoshahay in qofka hadii uu awoodo oo mas'uuliyadda uu ka soo bixi karo hal labo saddex ilaa afar inuu guursan karo laakiin waa ina marka koowaad uu san rabitaan iyo jacayl ka aheene ka soo bixi kartaa mas'uuliyadda ka saaran guurka adi aad samaysay ama gabdhahaas adi aad guursatay intaas hadii aad ka soo baxdo waa lagu ogol yahay 4 3 5 inaad guursato waa lagu ogol waa raaxastaaga korollah 3 4 inaad guursato waa lagu ogol yahay sharciga soo fakatay okay arooskii qarniga oo dhacay gabar ninkeeda hadiyad uga dhigtay saaxiibteeda gabadhan waxay tiri walaashay saaxiibteeda hadiyadan ka dhigana ma fahamti hadiyadan ka dhigana odaygaygan ku siisana okay gabadha waxa la yiraahdaa ruqiyo waxa loo yaqaanaa ummu abdallah ayaa loo yaqaanaa waa xaaska koowaad ee xasanaad waxayna u dhashay laba wiil oo wali midkood aan gaarin 10 sano waxaan aqrinayaa qisada uu turjumay Alteso okay waa gabar baraha bulshada laga yaqaano laakiin waxa cajiib ah waligeed lama arkin wajigeeda gabadhan la yiraahdo ummu abdallah waligeeda lama arkin wajigeeda lama arkin okay maxaa dhacay marka maxaa dhacay xasanaad waa kuma xasanaad muhammad oo u dhashay dalka Morocco waa sayga qaba ummu abdallah oo iyadana isla dalkaas u dhalatay waxay ku nool yihiin magaalada London ee cariga England waa tuma sister Sarah gabadha loo guuriyay odayga iyana waa tuma Hijama oo loo yaqaano sister Sarah waa gabar 20 sano jir ku dhalatay dalka Ingiriiska waa gacanta midig ee ummu abdallah waaba saaxiibo ma sameyn lahayd in saaxiibta aad dhahdo saaxiibteedii wax ma ka codsan garaa waxaan rabaa inaan ku guuriyo odaygayga ee ma ku qanacsan tahay intaas ma sameyn lahayd okay waa saaxiibo zaid ah ama zaid isku jecel oo aan kala maarmin marnaba si aan caadi ahayn ay isaga dhow yihiin labadoodii dadka kale way isaga dhow yihiin haddana hal oday wadaageenba هو هديدان وادعض الله يابله هديدان هو waxay noqotay dhacdo la yaab leh ummu abdallah ayaa dhalashada maalinta uu dhashay ninkeeda ugu hadiyeysay saaxiibteeda sister Sarah inuu guursado war maanta dhalashadaada miyaha odaygayga dhalashadaada miyahan maxaa guurso anaa ku sii hadiyad ilaahu nasiib ilaahu kuwaasoo kale nasiib ma helaaye kuwaasoo kale nasiib waa ku yaryihiin Soomaalida sababtoo ah waxay ku leeyihiin ani war ani ma iga weysaa walba ani iga weysay way ana kal urooyinay way asaab sameeyay ilayhi oo hadiyadan waa dhacdo la yaab leh ummu abdallah ayaa dhalashada ninkeedu waxay siisay saaxiibteeda markii la weydiiyay sababta keentay arintan laga wada yaaban yahay ayaa waxay ku jawaabtay suuratu nisaa ayuu alle ku leeyahay aayada koowaad ilaa afraad waad hal ilaa afraad macnaha hal ilaa afar waad guursan kartaan ilaaha saas dhahay tiri ani ma aha man ila yaabi kartiin ma sha Allah xiriir miyaa ka dhaxeeyay gabadha hadiyad ahaan loo siiyay xasanaad iyo xasanaad xiriir ma ka dhaxeeyay maya wax xiriir kama dhaxeenin labadoodiba ama xasanaad iyo sister Sarah ama Hijama xitaa waligoodii meel aysan joogin ummu abdallah kuma aysan wada hadlin ummu abdallah oo joogtay la hadli jiray okay laakiin waa dareen iyo go'aan ka yimid
marwada koowaad oo qaadatay go-aan ay adag tahay in la sameeyo haddii awoodda hadda u guuri ninkaaga intaa dhahdo baby maanta dhalashadaada miya ahaa baby maanta wax miya ahaa saaxiibteeda hoo hadiyad aana guurtay saaxiibtaada xitaa maahane baby maanta dhalashadaada miya ahaa naag labaad iska guursa dheh cashada dogsoo daahaa telefoon la daba taagantiin okay cabdallah ayaa marka hore weydiisay sister Sara inay ogoshahay in ninkeeda la guursato ma ogoshahay tiri wayna ka aqbashay inkastoo ay ku noqotay layaab fajac iyo naxdin isagana uu ogolaaday walow marka hore ay ku adkaatay isaga arintaasi saddex su'aalood la isweydiinaya dadka ayaa wali isweydiinayaan su'aal ay adag tahay in laga jawaabo ninkaaga hadiyad ahaan ma u siin lahayd inuu naag kale kula wadaago waliba saaxiibta aad adiga taqaano haddii ay jawaabtaadu haa tahay commentiga ku soo qor ma ka aqbali lahayd xaaskaaga inay kuu keento gabar kale oo ay ku dhahdo guurso odayga iyo gabadhan mase waxaa dhihi lahayd waa baari oo yaab heli kara waa run waa baari saaxiibtaa hadday ku dhahdo ila guurso ninkayga ma ka ogolaan lahayd adigana gabar yahay miyara inoqo an min weyna ahay marka Soomaalida sida intaas waa qisadii iyo dhacdadii altees waan maad cilnayna isaga soo xiganay waa ina xustaa sheeko walba iyo maqaal walba iyo wax walba ay sheegaysid meesha ay ka keentay waa ina dhacdaa hebel ayaa soo turjumay okay waxa la iska rabaa Soomaalida maxay dhaheen waxa iga badnaa muuqaal aan ku arkay baraha bulshada gaar ahaan aalada aad ka loo isticmaalo hadda TikTok loo yaqaano application kaas yar ayaa waxaan ku arkay gabar ka hadlaysa guurka waxay tiri gabdhow maxaad u la yaabaysaan ragga Soomaalida waa 2 milyan anagana waxaan ahay 5 milyan hadii la qaybiyo qofkiiba hal ibarak soo aaday miya ay tiri marka inay laba guursadaan danta ku kalifaysa Allah gabadhaas maxay noo gargaartay laba inay guursadaan danta keenaysa ilaa anaga badan ay tiri nimankii yar hadda kadibna waxaan guursanaa kulaha nin laba naag qaba bal aan daawano muuqaalkaas kooban ee TikTok aan ka soo dejinay duuboyo waxay ku dhacday dad ficnaa maxaa ninkeena rooroosa sabri naag rooroosa maxay asxaab ya rasuulullah 5 milyan naaya maana 5 milyan naga 2 milyan niman waa 2 milyan kala gooy 2 milyan bounty lawa waa bounty lawa waa 2 milyan bounty lawa 2 milyan naaya wada qabaan allah inta kala exclusive shaqa jaari suura soo haray taa dartii 2 milyan naag qaba waan rajeynaa inaa muuqaalkaas soo daabateen baraha bulshada Facebook meesha inta badan Soomaalida ku wada xiriirto waxa la leeyahay gabar ninkeeda nin kale u guurisay gabar ninkeeda naag kale u guurisay gabar ninkeeda saayay waa si guud marka laga hadlo waa sax sida sharciga uu qabo diinta islaamka inka 2 3 4 u guursan kara laakiin waa hadii uu awoodo laakiin maxay Soomaalida ay uga xumaadaan arintaasi gabdhaha Soomaalida maxay sidaan oo kale u sameeyeen laayihiin oo loo heli laayahay gabar dhahda الله أضيجي وأنا هذه لبستان 4 سنة اسقبناي ما قبل كل جورستي مركز سجود مركز لفيريو مرنوا حالي كروا درين يو شعيل قبل ده أي سن ربين إن كذا لو ذا وصورة قال هدي لو ذا أنا أي سلالة هاي عاوة هدي لقى صداح وبين كلجو إماد وبين طاف وديواتو أي سلالة مركز بين طاف كيديدا يعني قبل ده صوم على ده وحيرة بس هالكي قفتن صاصني وهاي صاص هدي لدينا يعني بحل إلا ده موجي عاو gurigan habeendan gurigaas 4 isbuuc iyo 7 waxa laga yaabaa hal ibar inuu kugu soo aado waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan farxisada janaayad ka daawanaysaan altees aan naga qayb qaatay oo aan ka soo qaadanay sheekada sida ay u dhacday iyo page-kiisa Facebook soo dhigay qoraal dheer oo kaga hadlaaya arintaasi annagana waxaan ku lifaaqnay baraha bulshada sidee looga falceliyo arintaasi fadlan subscribe saar rukumana gambaleelka see you again next video gabaryaa waxaan ku rajeynayaa in ninkaaga aad siiso hadiyad ka qaalisan midaasi waaba hadii ay jirtay hadii aadan hadiyad midaas ka qaalisan siin karin xitaa midaasi si mid lamida gabar kale u guuri odaygaaga dhalashadiisa waxa maleena in la weyn doono nin dhalasho dhigta bye bye